السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كامر كلا سو دوانك muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago xalay intii la jiifay wadanka Venezuela waa laga adeegtay Mareykanku waxa uu ku qaaday duqeymo dhinaca cirka ah waxaana madaxweyne Trump uu sheegaba uu bartiisa True Social uu ku soo qoray in madaxweynihii wadanka Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisii gacanta ay dowladda Mareykanku ay ku soo dhigtay Mareykankana loo soo wado durbaba Mareykankuna dacwado ayuu ku soo oogay madaxweynaha wadankaasi Venezuela haddaba arrintan sidee halkan ku gaartay bilihii la soo dhaafay maxay ahayd waxyaabaha madaxweyne Trump uu sameynayay uu doonayay in isbedel dhinaca siyaasadda ah uu uga sameeyo wadanka Venezuela arrintan sharci ma tahay maadaama Congress-ka uusan ogolaansho ka helin marka madaxweyne Mareykan ama dowladda Mareykanku wadan kale ay weerarayso waa in Congress-ku uu ogolaadaa marka arrintan hadda su'aalo fara badan ayaa ka taagan duqeymaha doomo uu leeyahay Trump darooga ayay wadeen oo bilihii la soo dhaafay ilaa iyo bishii 9aad ee September uu duqeynayayna imise qof ayaa ku geeriyootay arrimahaasi oo idil ayaan rabaa bal inaan idin la wada madaxweyne Trump ayaa waxa uu laslab ku dhawaad 2 saac iyo bar ka hor bartiisa True Social uu ku xaqiijiyay in Mareykanku gacanta uu ku soo dhigay madaxweynihii wadanka Venezuela Nicolas Maduro iyo waliba xaaskiisa waxa la leeyahay howlgalkan waxaa fuliyay ciidamo qaas ah iyagoo jiifa sariirahooda ayaana gacanta lagu soo dhigay madaxweynihii wadanka Venezuela Nicolas Maduro iyo waliba xaaskiisa ciidamadan ka hor inta aysan gelin wadanka Venezuela ilaa iyo 5 duqeyn oo kala duwan ayaa ciidamada Mareykanku uu ka geystay gudaha wadankaasi Venezuela 3 kamidana waxa uu ka geystay caasimadda wadankaasi ee Caracas dad ayaa ku geeriyooday kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen ayaa la leeyahay hadda madaxweyne ku-xigeenkii wadankaasi Venezuela waxa ay leedahay waxaan doonaynaa in la tuso in madaxweynihii hore sida hadda uu noqonayo uu nool yahay ama in uu dhintay wasiirka gaashaandhigga ee wadankaasi Venezuela wuxuu yiri Mareykanka waan ka argoosanayna haddaba madaxweyne Trump ilaa iyo markii xilka uu la wareegay waxa uu isku dayay in Venezuela uu ka sameeyo wax la yiraahdo regime change in maamulkan uu hogaaminayo Maduro meesha laga saaro oo maamul kale oo Mareykanku uu wato uu taageersan yahay in wadankaasi Venezuela laga sameeyo ilaa iyo 15,000 oo kamid ah ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu geeyay meelaha xeebaha ka agdhow wadankaasi Venezuela oo maraakiib dagaal iyo diyaarado dagaal wato Panama ayaa kamid ah meelaha diyaaradaha Mareykanka ee dagaalka ay fadhiyeen iyadoo laga cabsi qabay inuu dagaal u qarxo xubnaha Congress-ka oo labada dhinac ee Republican-ka iyo Dimuqraadiyiinta arrintan waa ay dalacaynayaan maantana su'aalo fara badan ayaa ka soo baxaya waxa ay leeyihiin in wadan kale Mareykanku iska weeraro iyadoo uusan ogolaansho ka helin Congress-ka arrintaasi waa sharci darro taageerayaasha Trump ee maagana iyagu ma doonayeen in Mareykanku wadan kale uu duulaanka ku qaado oo waxay dhahayeen xisbiga Republican-ku waa xisbi nabadeed isla markaana waxa loo baahan yahay inuu wadan kale uusan dagaal ku qaadin Trump waa kii ku faanayay ilaa iyo 8 dagaal oo kala duwan ayaan xaliyay laakiin in isagu wadan kale uu dagaal ku qaado ayaa hadda su'aalo fara badan ay ka taagan yihiin Trump wuxuu ku eedeynayay marka madaxweynaha wadanka Venezuela waxyaabaha uu ku eedeynayay waxa kamid ah in kooxaha daroogada ka ganacsada uu xiriir la leeyahay madaxweynaha Venezuela isla markiiba hadda markii la soo qabtay markab dagaal ayaa la soo saaray oo Mareykanku uu leeyahay New York ayaana lagu soo wadaa Mareykanku durbaba waxa uu ku soo eedeeyay dacwado ay kamid yihiin in daroogo iyo sidoo kale hub sharci darro ah in uu ka ganacsanayo waxa uu leeyahay Mareykanku madaxweynaha Venezuela waxa uu xiriir la leeyahay kooxaha drugska iyo hubka sharci darrada ka ganacsada arrintan waxa ay ku soo beegmaysaa marka iyadoo maalnimadii shalay oo Jimcaha ahayd madaxweynaha Venezuela uu yiri wada hadal nabadeed ayaan diyaar u ahay oo dagaal diyaar u ma marka arrintaas ayay ku soo beegmaysaa hadda Trump waraysi kooban oo uu siiyay wargeyska New York Times ayaa waxa uu ku sheegay madaxweynuhu waxa uu ku sugan yahay qasrigiisa Mar-a-Lago maadaama fasaxii sanadka cusub weli aan laga soo laabanin marka shir jaraa'id ayaa la filayaa in uu goor dhow qabto bartiisa True Social-kana qoraalkan ayuu ku soo qoray uu leeyahay Mareykanka waxa ay si guul ku jirtay ay u qaadeen weeraro ay ka fuliyeen wadanka Venezuela iyo waliba hogaamiyahooda waxaana la soo qabtay ayuu yiri madaxweyne Nicolas Maduro iyo waliba xaaskiisa waxaana laga soo duuliyay gudaha wadankaasi Venezuela oo waba laga soo qaadaba waxa
howlgalkan fuliyey ayuu leeyahay ciidamada Mareykanka isagoo sheegay in faahfaahinno dheeraada shir jaraa'id oo uu qaban doono uu qasrigiisa Mar-a-Lago 5 saac oo subaxnimo uu ku qaban doono in uu ku faahfaahin doono marka waxa uu leeyahay waa idinka mahadcelinaya dareenkiina arrintan la xiriira madaxweyne Donald J Trump waa uu ku soo gabagabeeyay marka waxa leeyahay shirkaasi jaraa'id uu qaban doono ayuu ku faahfaahin doonaa laakiin su'aalo fara badan ayaa ka taagan haddaba arrintan maxaa ka horeeya marka bishii September 2 Mareykanku waxa uu bilaabay duqeymo dhinaca cirka ah oo u geysanayo doomaha badaha Caribbean-ka maraya iyo weliba bariga badda Pacific ilaa iyo 35 weerar oo duqeymo cirka ah ayaa doomahaasi lagu qaaday 115 qof ayaana lagu dilay waxa uu leeyahay doomahaasi daroogo kala duwan ay sideen Mareykanka ayayna ku soo wajahnaan waxaana la doonayaa in dadka Mareykanka lagu waxyeeleeyo daroogadaasi marka Mareykanka ay soo gasho kadibna dadka Mareykanka ayaa isticmaalaya waa ayna ku geeriyoonayaan sanad kasta dad fara badan ayaa Mareykanka daroogooyinkaasi uga geeriyooda marka Trump wuxuu leeyahay si taasi aan uga hortago ayaan duqeymahaasi u sameeyay iyaga nafsad ahaantooda su'aalo fara badan ayaa ka taagan yaa u ogolaaday madaxweynaha in meel ka baxsan wadankiisa duqeymo uu ka fuliyay Congress-ka isagoona sidoo kale ogolaasho aan ka haysanin Mareykanku ilaa hadda waxa la leeyahay xitaa waxaa jiray mar dad inta ay badbaadeen in duqeyn labaad loo celiyay oo lagu dilay qof isdhiibay oo doontii uu saarnaa la burburiyay in mar labaad la duqeeyana sidoo kale waa sharci darro marka arrintaasina sidoo kale su'aalo kale ayaa ka taagnaa marka Trump waxay u muuqataa in isagu sharciga uu gacmihiisa ku qaatay marka hadda uu xalay duqeeyay caasimadda wadanka Venezuela ee Caracas oo ilaa 5 duqeyn oo kala duwan oo xitaa goobo military ay ku jiraan la duqeeyay iyo markii doomaha kala duwanba oo badahaasi marayay duqeynta uu la eeganayay Trump marka waraysi kooban uu siiyay TV-ga uu jecel yahay Fox News iyo weliba New York Times waxa uu ku sheegay in la soo qabtay madaxweynihii wadankaasi Venezuela iyo xaaskiisii isla markaana sidoo kalena hadda Mareykanka ay ku soo wajahan yihiin waraysigiisa waxa uu yiri oo Fox and Friends uu siiyay isla weliba qadka telefoonka uu ku siiyay waxa uu sheegay in ciidamo kala duwan ay ka qayb qaateen howlgalkaasi waxaanu yiri waan daawanayay waad ogtihiin ayuu yiri inaan jeclahay inaan daawado television showska marka sidaas oo kale ayaan si toos ah u daawanay marka ciidamada Mareykanku markay howlgal sameynayaan madaxweynaha waxa jirta maadaama ciidamada kaamarooyin ay u xiran yihiin in si toos ah ula socdo howlgalka markii hadda in la dilayay Osama bin Laden oo kale Obama waa uu la socday marka sidaas oo kale ayuu si toos ah madaxweynuhu ula socdaa marka Trump wuxuu leeyahay si toos ah ayaan u daawanayay xawaaraha iyo weliba dardarta uu ku socday qalalaasaha uu lahaa waxayna ahayd uu leeyahay arrin aan ku raaxaysanaya sida isagu uu hadalka u dhigay The team did an incredible job. They rehearsed and practiced like nobody's ever seen. And I was told by real military people that there's no other country on earth that can do such a maneuver. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. And if you would have seen the speed, the violence, you know, they say that, the speed, the violence, they use that term. It's it was an amazing thing, an amazing job that these people did. laakiin waa uu xaqiijiyay in madaxweynihii Venezuela gacanta lagu soo dhigay iyo xaaskiisa isla markaana sidoo kalena waa maxaa ka dambeyn doona marka maadaama la soo qabto waxaan ogeyn sidoo kale bishii soo dhaafay in maraakiibta shidaalka qaada oo ilaa iyo 2 milyan oo fuusto oo shidaal ciriina siday in Mareykanku uu gacanta uu ku soo dhigo hadda gobolka Texas la keenay markabkaasi oo shidaalka qaada waxaana uu Mareykanku uu sheegay in shidaal sharci darro uu waday wadanka Iran maadaama Venezuela ay cunaqabateen oo Mareykanku saaray waxay leeyihiin si sharci darro ah ayaa shidaalkooda Iran iyo Cuba iyo meelo kala duwan uga iibin jiray marka markabkaasina gacanta ayay ku soo dhigeen waliba ilaa iyo 2 markab inay yihiin ayaan jeclahay marka Trump shirkiisa jaraa'id ayaa la sugi doonaa laakiin xubnaha Congress-ka oo hadda dib u soo laabanaya Isniinta waxay u muuqataa in su'aalo fara badan arrintan ay ka qabi doonaan iyo awood u siiyay madaxweynuhu kaliya inuu sharciga gacanta ku qaato isla markaana wadan kale uu weeraro madaxweynahoodii oo noolna gacanta uu ku soo dhigo Congress-ku waxay ka yiraahdaan waa la arki doonaa iyo Trump waxa uu isku difaaciyo waliba maamulkiisa waxyaabaha kale ee soo kordhay stay tuned insha Allah waa idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo